waxaa maanta dadka islaamka ee ku dhaqan dunida waa ciideen ciidul adxa haddaba halkan aanu ku sugannahay waa garoonka weyn ee stadiyoonka ee magaalada Hargeysa caasimadda Somaliland waxaana salaada ciidul adxa ka soo qayb galay shacab weyne tiro badan waxaana shacab weynahaasi salaada kala soo qayb galay waxgarad waayeel aqoonyahan iyo culimo iyo wasiiro xilal ka soo qabtay xukuumadihii iskaga kala dambeeyay hogaaminta Somaliland mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani labada gol qaran ee Somaliland ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay Sheekh Maxamed Sheekh Umar Dirir iyo Sheekh Mubaarak ayaa waxay ka hadleen muhiimadda ay maalintani u leedahay islaamka oo dhan waxaana hadaladoodii kamid ahaa waxbarasho baahan oo aad iyo aad u badan looga baahan yahay waxaynu arkaynaa masaajidadii oo la dhisay laakiin aan lagu tukanayn walaalaheenaasi waa dadkeennii inagu halkaasi kaga nimi waa dad u baahan in loo gurmado dacwad ahaan iyo diin ahaan iyo deeq ahaan walaalayaal muddooyinkii ugu dambeeyey imika waxaynu xoogga saarnay ama waxyaabaha la iska kaashanayay waxa ka mid ahaa in dadkii miyiga halkooda loogu tago oo dacwadda la gaarsiiyo oo masaajidada laga dhiso oo madaarista qur'aanka laga dhiso oo macallimiin loo geeyo oo waxbarashadooda diineed la tayeeyo taasina ruux kasta oo halkiisa jooga ay ku gaadho innagana si ay inooga dhaco uu dembigu inooga dhaco haddii kale oo innaguna ahaano dad iyagu hore u socda xagga waxbarashada ama diin ha ahaato ama takalaba ha ahaatee xagga dunyada dad hore u socda aynan dib u eegin halkii aynu ka nimi ruux walibana maalin soo dhaadhaco waxa dhacaysa inaynu markaasi kala tagno waana dhacday barakallahu fiikum محمد وآله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ولا ليال مركه هراء وين فرح سنة هاي وحين كفرح سنة هاي وحبضا ونعمة وإلهي ونسيه سبحانه وتعالى هديت هاي نعمة دينته يا هدي أي تهاي نعمة دنيا dadka dalka dhinac walba ilaahay waynu mahadnaqaynaa ilaahayna wuxuu inoo ballan qaaday markaynu nicmadiisa ku mahadnaqno inuu inoo kordhiyo Allahumma zidna wala tanqusna baylan ilaahu inoo kordhiyo hanaga naaqosa inta kadib halkan markaynu isugu nimi waxaynu ilaahay marti uga nahay siduu nabigu inoogu bushaareeyay sallallahu alayhi wasallam inay naxariistiisu inagu soo degto oo intaasoo jamaca oo isu timi oo ilaahay hortaagan inay caabudaan oo salaadiisii tukadaan naxariis baa ku soo degaysay Allah inoo aqbalo waxaynu walaalayaal aad uga digaynaa xaraamaha kala duwan sharcigu inoo diiday oo ay ka mid tahay balwadu hadda maalin walba booliska waxa dhageysanaysan iyagoo soo qabanaya daroogadii iyagoo soo qabanaya khamrigii waxa keenaya soo waaridaya waa dadkeen daroogadii baa la beeray maxaa ka dhalanaya marka la soo waarido ee la beero waxa ka dhalanaya in aqligaagu tago geesta kale shacab weynahani tirada badan ee ka soo qayb galay salaada ciidul adxa isla markaasina ku tukanayay garoonka stadiyoonka ee magaalada Hargeysa ayaa telefishinka caalamiga ee Badda Cas 24 TV la wadaagay dareenkooda ku aadan maalintani ee ciidul adxa ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa magacaygu Cabdirsaaq Cabdisalaan Xasan hambaliyada ciid awgeed waxaan halkan hambaliyo uga dirayaa dhammaan family-ga meelo kala joogaan badal iyo dibadba si gaar ah waxaan hambaliyada ciid la wadaagayaa hooyo macaan سارة عبد الرحمن محمد يا أبو عبد السلام حسن يا دمام با أصحاب تقاليقا بعد الصحافة دوغوري ناصر تلسمة يا صاحبك عبد الرحمن قعيرو يا دمان انت مقعيق موقعيق وكرن السلي عيد مبارك تقبل الله منا مقعيق محمود خضر حسن عيد مبارك دمان ومدى المسلمين waxaan xaggan si gaar ah uga salaamayaa hooyada iyo abahay iyo dhamaan waalidkii iyo xafadeedii oo dhan aygu Maxamed Isaaq Xuseen waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummatul muslimiin meel kasta ay joogaan aniga ugu horeysiinaya labadayda waalid ee adduunka ay keenay
anigoo ku xigsiinaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi أبي محمد أحمد يا تسلمي hooyo maad salaami تسلمي naasir wad maasan tahay waxaan aad iyo aad halkan uga salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ee meel kasta joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan sidoo kale waxaan aad iyo aad salaamayaa dhammaan shaqaalooyinaha badda cas 24 TV oo ka mid ahay sidoo kale waxaan naasir aad baan ku salaamayaa iyo adiga Gacayro waxaan leeyahay ciid mubaarsan waa naasir cabdulqaadir cabdiwahaab naasir talasame badda cas 24 TV istaadiyonka ee magaalada Hargeysa markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 TV kala soco wararka u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka isla xilliga ay dhacayaan badda cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook YouTube iyo sidoo kale Twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo galno fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay page-ka badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso